ka codsanayaa caawinaad ayaan weydiisanayaa waxaan ahay maamo ku dhaawacantay qaraxii soobe 2 oo ku jirtay ilmo ayaan u xamaalan jiray ilmahayga agoon waay qaarna aabood waan kala tagnay laba bah waaye bahna denin aan kala tagtay waa ogtihiin naagna igama guulaysanaysa laakiin hooyada iyo waalidkayga qolkaaga gudihiisa hadii laga soo weeraro hadaad gurigaaga jiifani karin qolkaaga gudaha laga soo weeraro maxaad ka qaban kartaa walaalay macaanay yaadna iska dhicini kartaa taas jawaab u baahan markaas waa marka aad dhaxda ka jabaysid koode markii hooyada la saaxiibta cadowga hooyada hadii videoga ko soo duubtay ayaan hadii marka ko inta hooyo soo duubtay ayadoon qoraalka la soo dhigin wallahi ama markuu qarax dhacay hooyada hadii soo duubi lahayd hal la caawiyo Soomaaliyeey wallahi aan wax muu arkeen laakiin hooyada soo bashabi ma ahayn ku iri hooyada laakiin fiiri sideed bilood ama 7 bilood wax ka soo wareegatay ay caafimaad qabtay 3 bilood xaga ku qaadatay 4 biloodna ani ay agteena ku qaadatay labana hooyada ku qaadatay bilna ani igu qaadatay ani aan takhtar checking geeyay wax walba hooyada u caafimaad qabeen anagoo isla qosleeno is jecel aan social media ku jirnay ceeb iyo caay hooyada aan dhaxmarin hooyada ayeedeeda u tagtay ayeedeeda baa bedeshay waxa la dhanaagtan ilmaha u haynin hooyada waa la gadiyay ma u diidani wax walba ay sameeyay ma u diidani maanta nin bay u warantay waxay tiraahday way tahriibi rabtaa war aniga ilmaha hooyada waxaan arki jiray uun caawiyo gabdho saaxiibaday wada baxeen Mareykanka joogaan maanta tageen hooyada ayagoo video isku hadlayaano hooyo macaan garabkaygaad noqotay aniguna ma bixinba meel ma aadin waan taaganahay maanta saacadan taagan jirjigan taaganahay labadeeda cunuga labada farqay ugu dhigan meel aan ka aadi kara malaha waxa la leeyahay hooyadeeda guriga ay barka saartay Mareykanka u jeeda way tahriibaysaa way caasi waalidiin war Mareykanka taa wuxuu rabaa in la support garayo dheel lagu marto inta lacag lagu tago may garanayaan dadka $10,000 $20,000 ka badan lagu tagaa aniga gabar yar ilmo korsanaysa ahay hadii ilaahay isku kayto si waan bixi on ilmeyga meel u hesho quman hadii kalena labada cunuga ilaahay badiyo wixii damboon heli doonaan la seexani on la gaajooni laakiin intii hooyada sir baan iga gudbisay wax jirin isku dartay hadana video soo duubtay dhaaday walaalayaalo gabar maskiin ahay ilmo agoon waa haysta kuwan nin ifruwa garanaysa waxa iguma taro in la caawiyaa rabaa gacantaasna saasaan ka ahay hooyadayna xagga familka ay ka dhalatay iyo xagga maanta aniga gabadheeda rasmi wax baahi ee ka tabartay ee waligeed hal gaajo ku seexato hooyaday ma jirto walaalayaal ma fahanteen ما شاء الله هيا hooyaday xamar deganeed xamar lagu qabay 3 ciyaal oo agoomo waaweyn oo anida adigu xigto oo gabadha anigu xigto la qabo ayay haysatay oo maanta caruur yar ahayn iyo laba yar oo aabahood ay mar dhow kala tageen oo asaga uu biilanay hooyaday waxaanay awoodo waan ku tiray hooyaday waa gabar yar way shaqaysanaysaa ma fahanteen ما شاء الله هيا inti hooyaday ay shaqadeeda ay qabtaan ani hooyaday wixii maanta aan ku tiray aniga rasmi ah iyo aniga iyo ilaahay iyo familkeena is og تاسان بينهن هيا hooyaday saan elborka maantaan kasoo qaadayna hooyaday waxaan oga soo qaaday inaan check ku sameeyo maadaama dhakhtarka Nairobi uu fiican yahay hooyaday waxaanay awoodo waan ku tiray hooyaday waa gabar yar way shaqaysanaysaa ma fahanteen ما شاء الله هيا inti hooyaday ay shaqadeeda ay qabtaan ani hooyaday wixii maanta aan ku tiray aniga rasmi ah iyo aniga iyo ilaahay iyo familkeena is og تاسان بينهن هيا hooyaday saan elborka maantaan kasoo qaadayna hooyaday waxaan oga soo qaaday inaan check ku sameeyo maadaama dhakhtarka Nairobi uu fiican yahay صح hooyaday hadii baahi qabto ama lacag ay u baahan tahay maalintii qarax dhacay oo dhibka ku dhacay markay soo caafimaaday ayay hooyaday inta soo hadasho Soomaali Maxamed ee kolay soo galaraal noqda ما يدوم على كوسة عباية هواكم مقلنا هيا hooyaday hadii baahi qabto oo ama hadda dhaawaceeda uu dib ku hayo waagi dhaawaca uu ahaa oo 9 bilood ama 8 bilood ka soo wareegatay ayay hooyaday aan intii soo farsato ay Soomaali Maxamed baahi u sheegan lahayd hooyaday dhibkeeda iyo lacagteeda aan imay soo marin familkeedii baa xabadka u garaacday ray aabaheed baa tuurnaa abtiyaaladay wada taagan oo Nairobi hadda la joogo oo saacadan isla hadlayna hooyaday qarashkeeda dhan wada shubay anigana wixii ilmaheena aan biilan karo oo biil u diray waan diibay ma fahanteen walaalayaal صح أنا ما أنت هو إذا أنت ما أنت شفت الميديا أنت صوفرته إيه واحد يقول سمعنا صورته ولي جاي مآمنين هو إذا إن عدو يجيبني سو
weligay ma aaminaynin ma fahanteen sorry haya hooyaday way Waa caafimaaday xabiibti. balaayo may qabin qarashkeeda walaaladeeda shubay alxamdulilah markay caafimaado waxaan ku yiri hooy aan kusoo kaxeeyo hooy 3 bil ha ii dhamaatay ku tiraa 3 bil u dhamaatay birta ku jirtay markaas caafimaaday aan ku yiraahdo aan kusoo kaxeeyo tigidkeeda wax walba u diyaariyay hooyaday si wanaagsan u soo dhaweystay waan keenay dhakhtarkeeda checkinkeeda meel walba mari waan haya waraaqadii aan dhakhtarka ku geeyay صح ma fahanteen صح hal meel oo maanta hooyaday laga hayo ma jirto walaal hooyaday birtaas la geliyay birna waa ogtiin mar gacan la geliyo gacan ay jabto gacantaas ilaa ay birta ay iska gacanta iska qabsanaysa birti wax bil iyo 2 bil lagu saareeyo ma ahan Si fiican. waa waqtiga dhakhtarka u qabtay waliba kan Nairobi markaan geeyay waxa lagu yiri maamada korkeeda firir yar oo ku jiro oo maanta wax dib ku haya aan lahayn ma ogi wax kale ma qabta gacantana xilliga lagu qabtaa laga saaraya waxa loo sameeyay maxal dhaha isha waxaan la daliigay gacanta loo sameeyay waxa lagu yiri daliigaas la sameeyay marka dhakhtarka Nairobi ku laabanaysa xamar ku laabanaysa dhakhtarku wuxuu yiri iisoo celi hay waa ani hooyadii waa aan babixi hooyadeeda waxay degan tahay gaaris hooyadii dhashaa joogta oo gaaris degan ma fahanteen hooyo waxay ku tiraahdaa maadaama bil kula joogo oo dhakhtarka ay igeyso waqti kula qaato hooyadii aan babixi ma fahanteen hooyaday waxaan aan babixi hooyadeed waan u adeegay ayeeday iyo abriirtay iyo wixii dadkii meesha joogay hooyo way aan babaxday habeenimo waan haya fiidiyoyadii diyaarad baan saaray adi waxaan maleynaa 3 bil ka hore ee xilligan hooyo aan babixiyay magaalada Gaarisa ee ayeeday deganta ayeeday isla joogeen nabaday qabeen anay arrin kale isoo gashay arrintiba waa iska dareemi kartaa wax family iska jira arrintiba ii suurto gali weys anu waa iska soo bixi jigjigan hadda jooga صح hooyaday Nairobi markay imaatay anu sharci ma haysanin ina hadda baasaboorkayga qaatay waan soo bixiray waa imaarab intaan soo bixin nooligeeda lacagteeda waa isku dul saare waa la isoo wacay arrimo badan oo family oo maanta inta aan ka sheegi karna abaa horta jirta walaalayaal I understand. waxa jirta wax public la keeno No, I wax public maanta nin qaba ma aha saar waa cayn karo hooyaday gabar ila dhalatana ma ahan naag saaxiibtayna ma ahan waa waalidkaygi ani idhashay waa hooyaday anu 3 bilood jiro ayaa bay kala tageen walaal way i dhigtay waxa ay soo korstay ayadii aabe ma arkin jaceelkiisa hooyo jaceelkeeda ma arkin kaliya soo kore waan soo rafaaday Nairobi daas maanta ani aan dukaanka ku leeyahay wallahi oo billahi oo talaa shaqaalan ka soo noqday waan ka soo rafaaday banaan baan ka soo seexday xaaladayda ilaahay baa hooyadii aabe way taagnaayeen maalintaas ayada ahayd waxa ani aamirey Si fiican. hadda hooyaday ilmahan waaweyn ay leedahay aniga ilmaha wax la'aan waxa la igu siiyo oo wada qaangaarka aniga igu soo wada xigay aniga maanta naagtan weyn intan la ilmihii igu wada xigay ee qaarna la qab qaarna wax barsho ku jiro weyn wax lacagtay hooyadii u tuqsanayso ee ani iga weysay ma jirto walaalayaal walaaladeed waxay ka weysan ma jirto dadka social media ku jiro way iska dhibadan yihiin dad badan anaga xifaaltan dhaxyaala hooyadii maadaama ani arrin family na dhaxyaalana dad baa naga faa'iideystay oo hooyadii ii soo maray marnaban ani hooyadii uma maleyneen in la ii soo maray laakiin way dhacday hadday dhacday maxaan sameeyaa hooyadii uma abtiriyaa inta meel u fariisto marka waxaan ku please weydiinay ani Soomaali Maxamed waxa ka codsanayo hooyo maya rasmiga waa dareemi karnaa waxyaalo badan oo ka hadli karin waxyaalo badan oo ka hadli karin way jiraan horta qofka aniga hadda midda aan ku soo saarno xumaan ma ahayn dadku waxa dheenay bal arrinka siduu u jiro ana loo sharaxo adigiina hadda waxa tir waxyaalo bareefad way jiraan qof walba oo aan laga hadli karin hooyadaana maada ka sugeenin so aad iyo aad aan u mahadsan tahay insha Allah hooyana hadda weeba dhacdo Soomaali star la dhahayo ha wiilka Soomaali star la dhahayo oo soo dhiga qoraalada oo leh maxaa la jiray waxay tiraahdaa ani ilmahayga hawiye laguma dhaxaynayo rasmi way tahriibirta baasaboor ay qaadatay Mareykan u jeeda aan hooto saaxiibaday dhan Nairobi aan wada joognaa wada bixin haddaan baxayo mar hore aan bixila waxaan u bixi waay awlaadeydaas cid aan uga tago ayaan la naag walbo saaxiibaday hooyadeed ama walaalaheed baa garab taagnaayeen ma fahanteen anu kaligay baan ahay walaal gablan waxa ma dhaamo ma fahanteen ayaanaaba sheegaysaba waa saaxiibmeyga horta rasmi ee barasho Aniga ilmahayga meel qaasina la dhahaa ani sug aan wax ku sheego okay aniga sheekadaadan markii aan maqlay anoo adigu aqoon hooyada aqoon waxba aqoonin baasha hoosay ka qorunsantaan ku iri gabadha aan ku aqalanahay ani sax because waxyaalo badan oo waxaa jiro Sax. dhaco oo familka oo aad leedahay yaad maanta uga dacwootahay la dhimo ama isdil
okay it's okay qofna ina uguma dacwoon kartid meel aan it's okay ina oyso xabiibti aniga aan kula hadlaya ku sheega xogaa yar aniga aan kaaga hadlo aniga social media markaan soo galay hooyaday waxay tiri haddaadan ka bixin ana meesha la igugu tuugsanaa okay sax qofna uma sheegin maanta kale laakiin taadaanayti waxyaalaha yaala ku soo sumcadan ka dilay tiri ballan waar aniga ku sheer gareynaa doolka ugu horeey waa dhiiba magaca aabahay iyo hantidiisii wixiisii oo dhan iyo dadkaaga iyo kullin ana soo sheegaan ku inay gaajo ku heelin waxa sumcadeyda ku daba dhigay maxay tahay ummadaas i jecel ma ii diidantaan ku marka dadkii ani caynay ma iska celiyaa umada hooyaday yaa la dagaasha ii sheeg marka ani I can understand geeska hay حبيبتي is okay now also because aniga waxa kula yaa runay sheegtaa wax bay sheegtaa 10% aan sheegay 9 kan qarinaya ka badan okay marka inaad waxa hooyo waxa joogtay adigoo empty oo homeless eeda ku raaxaysanayso oo isleedahay yaa ku dhalay yaa ka naxay and you feel empty disappointed at the moment xitaa shaki waxa ka galaayo galmudug anigoo kale I love you marka ku dhahnay xitaa inaa shakisto dhadeen tii dhash maxaa walaah intaan hadaba taas ka wayha idinka beena sheegaysi okay and I understand حبيبتي you crying but you can cry maho marka reality marka ani maanta aan hadaa marka soo galay guys maxay idin dhahay ya saasi ilmaheeda hawiitir ilmaheeda daawad ficay gabadhaan ma aqaan kula gabadhaan ku aqalnahay hooyadii gabadhaan ku aqalnahay ku yiri because Soomaalida qofka weynay qalad iyo maxaa ku dhax xaq darro ay ku tahay I know حبيبتي فكرت أنا حنونك ودريمي كرامة أنا ولقي أنا السوشيال ميديا أنا مسوق لنا بايع أنا ولقي أنا السوشيال ميديا مسوق لنا gabar iska shaqaysanayso hadda shaqo abuurka mar dhawaan samaystay ilma haysta abaa ani shalay tuura ilmeegana tuura ma rabo I know حبيبتي oh you make me cry والله abaa isaan islaankaana hadda 2600 ku daawanaysa gabadhaan masaakiinta ka leexda biliis والله hooyo gabadheedu og intaas oo maanta ee haysato caan inay meel u soo fadhiisato aad xanuun u taa wallahi billah waa kugu soo darsana حبيبتي follow back soo dheh okay sorry it's okay حبيبتي we all been there حبيبتي we all been there qofka aqalka uu dareema qofka aqalka nolosha maanta hooyadii dii la weydiiyo su-aashaas oo la dhaho gabadhaada yaraanteeda xaggee kuugeed hadii la dhaho maxay uga jawaabaysaa hooyadaa markii la dhaho marka gabadhaada hooyadii markii la weydiiyo gabadhaada markay kismaayo askariga ka ahayd ay ku jirta xabsiga marka ay ku jirta tababarka maxay u gashay hooyadii darteed baa intaan ree aabahey uga dhunto ay soo korsadaan hooyadii barana aa dhahay aan raacay loori kismaayo markaan tagay hooyadii aan waxa afka igu dhahday hooyadii wuxuu ahaa iima imaan karta anigu nin baa qabaa reer baa leeyahay gurigiina ku laabo waxyaalo badana jira ma sheegi karo walaal hooyadii waxaan lagu sameyn malahan mar qaarka waxa isdhaa maalintii lagu dhalay istaalka ma ka bedelmatay aabahey ima soo korinin haddana xumaan iyo wanaag wax way lama imaado maanta haddaan dhaho aabbo hamigaasa u baahanahay aabbo waa kuu duceeyey orod أنا ما أنت قبر لقضاء هاي ننا يقضاء ما أنت نن رقميه نن لا حفال تم كرميه قبر يرى أيضا شلة تورا هاي أولاد أنا هيستا أولاد إني كرسان يا هو إذا ما أنت حل إيش الميديا بقى وسوق شم جوكتو ولا لا ذا شعل أو قرب تاجن أو هذا إلى هاللي ولا هذا ور اسم قري أنت اللي سوى على حالي ليه هو إذا ده بالعكسي بينه هو إذا وحن كوجسم إنسو هو إذا وحن عايز ده $100 oo ani la idhahay rasmi ku ceebeen ma kala weynaatay noloshay aniga ii dhashay iyo wixii aan ku tiri jiray ma intaas kala weynaatay ma sharaftaydi $300 ku gadatay ma sharaftaydi waxaas ku sameysay wallahi waan qaadan waay walaal TikTok hadda soo kala kow idinka iga hor imaateen waa iska soo qabsaday ma yaanakana wallahi maana aniguna kuma naceenin hooyana ma naceenin dadka waxaan dheena maadaama dadka inta la soo saaro wixii dhaco ee barnaamijka dadka la socdaan waxaa dhaan intaana wax lagu xadgudbin horta dhibka dhacay waxaa dhaan hana loo sheego hana loo sharaxo waxaana maanta ku faraxsanahay hooyadaayo inta la soo saarina adiga imaatid xaqiiqda noo sheegto aad iyo aad aan ugu mahadsantahay hooyadaana waana mid ay ka qoomamaysaa calashaantii lacag la sii in la dhoo gabadhaada ceebe
oo ka badanna aa u qabata rasmiya waa dareemi karnaa abaayo waalidka keli habaar malahan walaal ubadka hataa habaaray leeyihiin kuma telefon kuma telefon maya commentiga lama furaayo iska dhaaf waa xadgudub saayiday sameynaya رسمي عينوين أنا كحري رسمي عاي ملها عبر معان رالي أهو أوكي أديك كليجا ما سيتويشن كان فرتوني سودا وحبيب قرحي رسمي ساعتها صاحب في عنتها في عنا بقى صاحب معان رالي نقو بقول كيو بقول وحول بوا وجدنا ما فهمت تستر marka ani waxaan dhihi lahaa arinta arin family waaye si tartiib ah haloo xaliyo raali noqo qof bini aadan oo social media ku jiro oo magacaago si qaldan ugu dhawaaqay ama xumaanka sheegay taas maanta anaa u taagan anaa xabadku u garaacana ma fahantay wallahi aniga garta